guusha gaaleediya ay ku rayn bilaabaan markay arkaan. haddaad sifadaa iska dareento aad aragto meel muslim ku jabay adigoo faraxsan waa sifa min sifaati almunaafiqiin. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy in tusibka xasanatun tasu'hum wain tusibka musiibatun yaquluu qad akhadnaa amrana min qabl wayatawallow wahum farixuun baa ilaahay leeyahy qul lan yusiibanaa ila ma kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakkal ilmu'minuun. haddii wanaag idin hela baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala oo muslimku uu guulaysto dadka ka naxa waa iyaga baa ilaahay yidhi tasu'hum. haddii xagga allaba masiiba idinka haleeshana waxay odhanayaan waa arkaynaa waxaasoo annagu waa ka tabaabushaysanna. waxay jeesanayaan baa ilaahay leeyahy iyagoo weliba faraxsan. idan muslim jabkii gaal baa ku farxa, muslim jabkii munaafiq baa ku farxa. haddaad markaa aragto dad islaam u nisbo sheeganaya haddana meel muslim lagu jabiyey rayraynayo farxaya oo u arka inaan wax weynaba dhicina qolaama mutatarrifiina macaynkan ama saatan ahayd ay yihiin kuwa jabay waa calaama min calaamaati almunaafiqiin. ilaahay baana ku asteeyey. idan haddaad astaantaa isku aragto waxaad garataa bale inay kuu soo hoyatay aad u baahan tahay inaad dib isu nadiifiso. waxaa qur-aanku ku asteeyey munaafiqiinta markuu ka warramayay alle subxaana wa tacaala inay yihiin dad quluubtoodu ay la jirto cadowga muslimka, walaalnimana u dareemaya ninka gaaleed, colaad iyo xumana u haya ka muslimka ah. ilaahi subxaana wa tacaala isagoo nebi maxamed tilmaamaya wuxuu leeyahy alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli alkitaab lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum walaa nutiicu fiikum axadan abada wain quutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu inahum lakaadibuun lain ukhrijuu laa yakhrujuun macahum. ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala alam tara miyaad arkin baa ilaahay leeyahy ma og tahay ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim baa ilahay yidhi kuwa munaafiqiintii waxay ku leeyihiin walaaladood baa ilaahay yidhi yaa u walaala. munaafiqa yaa walaal looga dhigay? rabbulcaalamiin baa qolo walaal uga dhigay. mu'miniinta waxaa la yidhi innama almu'minuuna ikhwa. amaa munaafiqiinta waxaa la yidhi yaa la walaala yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli alkitaab. waxay ku oranayaan walaaladooda ahlu kitaabka baa ilaahay yidhi. idan waxay rumaysan yihiin mabaadi'da iyo aragtida ay wadaan ahlu kitaabkiiyo inta gaale la socota. waa astayn ilaahay subxaana wa tacaala uu ku asteeyey. ilahay wuxuu leeyay qoladaa waxay ku leeyihiin haddaa laynu khrijtum idinkaanu maciinanay si walba idinkaanu idinla soconnaa. waxaa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayaa munaafaqa calaamaadka lagu yaqaana inay ka mid tahay dadka gaaleed inay weli ka dhigtaan. weligu waa cidaad u nusrayso, u gargaarto, walaalatay, jeceshay, inuu guulaysto aad jeceshahay. kuwa mu'miniintaanay necab yihiin. ilaahay baa wuxuu qur-aan ku leeyahay bashiri lmunaafiqiin bianna lahum cadaaban aliima. waxaad ugu bushaaraysaa baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwa munaafiqiintii inay leeyihiin cadaab wax laxwiya. oo waa kuwani الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إلهي مؤمن كوحكو منافقا سيوحكو أستي الذين يتخذون الكافرين أولياء وكوا قال دولك كدغنا يبا إلهي من دون المؤمنين ومحيو كدغنا أيبتغون عندهم العزة با إلهي مقولي يا شرفتي مقعي الرين بين كرادين ينبال ليدي سبحانه وتعالى. إذا وعلامات كله وإلهي سبحانه وتعالى وكنت المامة يا قرآن كمركو أستيني إنما كي منافقين تها علامات كله كنت المامة قرآن كوشيغا يوحا كمده عايدة ضدك مسلمين تها أسماح حنية وحلمد الله بحيه وكإلهي إليه سبحانه وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأذل؟ وأهل الإسلام كي
ay ku sifaynayaan. idan intaasoo astoo aan israaciyay hal mid aynu ku sheegi karnaa oo ah labada safka ay rabaan inuu guulaysto, guushiisa ay ku farxayaan, ay u hiilinayaan, ay walaalayiin, ay la socdaan, waa safka gaalada baa la ku tilmaamay. maca daalika waxay la joogaan oo ay ka tirsan yihiin waa bulshada muslimka. bulshada muslimkaana waa la degan yihiin, safkanna waa u sahan iyo horseed iyo taageero iyo wax walbaba u yihi. astaan kaloo xoog laba qur-aanku uu ku sheegay waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala nimankan calaamaadka lagu yaqaano waxaa ka mid ah haddii ilaahay sharcigiisa lasoo hadal qaado in ilaahay la raaco, laga xukum yeesho, isaga laga dambeeyo, waxyu samaa la raaco, mas'aladaasi waa ka dhabar jeedinayaan, uma dhegtaagayaan. dadkana waxay isku dayayaan inay ka celiyaan oo ka weeciyaan. waxay raalli ku yihiin mas'aladaa wixii cagsigeeda ah ayay ku faraxsan yihiin, magacay doonaan markaa ha u bixiyaan oo ah maxaa u cagsiya cuquusha basharku waxay xeeraysay, jidaysay, ay isim ha wato. ilaahay wuxuu sharciyeeyey, jideeyey ma rabaan. bini aadamku caqligiisa wixii uu ka keenay uu jideeyey, ama xeer qabiil ha lagu sheego, ama xeer dowladeed lagu sheego, ama xeer United Nations ha lagu sheego, ama xeer ka hooseeya, mid ka sarreeya, mid ka dambeeya, wuxuu doonayaa ha noqdee, wixii bashar uu ururiyeyna xaggiisa u dheeraynayaan baa ilaahay leeyahay. ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay calaamad munaafiq tahay. markaasaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إلهي وحليه سبحانه وتعالى ميانا أركين كوى الشيغانية أرنكود الزعم بالغدقي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل كوا شيغانيا إن الروميين وحي أديك لغو سو دجيي iyo rusushii horeba wixii lagu soo dajiyay oo maxay qabanayaan waxay rabaan baa ilaahay yidhi inay xukum ka dhigtaan taaquudka iyo warkii iyadoo ilaahay uu faray inay baabka ka gaaloobaan laakiin shaydaan baa lumitaan fog lumiyay baa ilaahay yidhi maxaa u astaana markaa wayda qiila lahum ta'aalaw ila ma anzala Allah ila ar-rasul haddii la yidhaahda baa ilaahay yidhi waar u kaalaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey nebi moxamed wixii waxyiya loo keenay kaalayo raaca haddii la yidhaahdo ilahay wuxuu yidhi ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda waxaad arkaysaa munaafiqiintii oo mas'aladaa ka jeesanayoo diidan oo ka cararaya. idan haddaad aragto bulsho ka didayso ka fiigaysa waar ilaahay aan raacno waa sifo ka mida sifaadka munaafaqa lagu yaqaanay rasmiga waa sifo aan u baahanay markaasi inaan iska fogeyno oo ah haddii ilaahay iyo rasuulkiisa lagugu yeedhay inaana diidin. mas'alo 2 3 4 5 20 konton waxay doonaysaa ha noqoto ilaahay iyo rasuulkii haddii lagugu yeedhay wixii ka yimi inaanad ku madaxadaygin oo ka jeesanin. haddaad ka jeesato waxay noqonaysaa inaad yeelatay sifo ka mid ah sifaadka nifaaqa. munaafiqiinta sifaadka uu qur-aanku ku sifeeyey waxaa ka mid ah inay yihiin qaybo ka midi duul tahana muuqaal ahaan dadka markay is hortaagaan jidh ahaan dhisan, hadal ahaan hadal deeqsiinaya, dadka u sheegaya inay khayr iyo wanaag wadaan, waxay rabaan inuu islaax yahay. laakiin hadday jeestaan oo markay tagaan bulshadii markii lala hadlay saasaa loola hadlay, laakiin marka asxaabtoodii ama gaaladoodii ama kooxdii la isku mabda ahaa loo tago warkii ka gedisan baa la akhriyaa. mar labaad waxaa la yidhi marka ay hadlayaan ee wax sheegayaan sidan bay wax u wadaan. haddiise madax laga dhigo oo iyaga arrinka loo dhiibana wax walba waa gundhaban baa ilaahay leeyahay, fasaad bay ku gundhabaan, waxbaba ma nooleeyaan. idan marka hore aanay wax haynin waa warramayaan, khayr bay ka warramayaan iyo wax walba in la islaaxinayo. markayse iyaga gacantooda soo gasho
dad iyo xoolaba waa halaagsamayaan. ilaahay baa qur-aanka wuxuu leeyahay wa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati addunya wayushhidu allaha calaa maa fii qalbi wahuwa aladdu lkhisaam. dadka qaar baa ka mida baa ilaahay leeyahay warkiisu uu ku cajab gelinayo oo dadka caliimu lisaanka ah, bale dad dood badan oo doodyahana aladdu lkhisaama, dad dood badan oo warkiisa markuu sharxayo si fiican u soo bandhigi kara. laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waidaa tawalla min alwilaaya aw min altawalla iyo alicraad kaa doontaba kake haddii ay madax noqdaan ama haddii ay jeestaan oo meeshii laga warramayay ay ka tagaan oo meelahoodii gaarka ah ay tagaan, ilahay wuxuu leeyahay sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wannasl wallahu laa yuxibu alfasaad. shaqada ay markaa u dhaqaaqaan waxa weeyaan baa ilaahay leeyahay inay dhulba fasahaadiyaan oo ay xarth iyo nasl, taran iyo beer iyo cid walba inay halaagaan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. wallahu laa yuxibu alfasaad baa ilahay yidhi, ilahayna fasaadka ma jecla. waidaa qiila lahu ittaqi illah, markaa dambe uu wax wado haddii la yidhaha war ilaahay ka cabso, xaggaad wax ku wadaa, akhadathu alcizatu bilism faxasbuhu jahannama walaa bi'sa almihaad. isla weynidiiyo kibirkaa qaado oo dadka wuxuu arkaa dadaan waxba garanaynin ama wax badan, wuxuu u arkaa fasaadkiisu inuu islaaxiyey. waayo ilaahay baa wuxuu leeyahy waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lard qaluu inamaa naxnu muslixuun alaa inahum hum lmufsiduun walaakin laa yashcuruun baa ilaahay leeyahy. haddii la yidhaahdo war dhulka ha fasahaadinina, waxay leeyihin annagu waxaan wadnaaba waa islaax. xoogaagan dadka la laynayo waxa kan waxa looga jeedaa in nidaamka lagu dejiyo, arrimuhu inay dhagdhag noqdaan ayuunbaa loo wadaaye adigunbaa angalka qalloocan wax ka arkayaa lagu leeyahay. adigaa meeshaad wax ka eegaysaa meel qalloocan tahay ee indhaha fayowa caafimaadka qabaa wanaaggan wadna way arkaan. dadka bukaan arag bay ku leeyihin, indhaha bukaan arage wixii caafimaad qabee fayoobi way arkayaan waxa islaax iyo wanaag la wado. ilaahay baa wuxuu leeyahy alaa inahum hum almufsiduun, inahum hum almufsiduun. alaa war hooye adawaatu tanbiih baa ilaahay ku isticmaalay. dabeetana ilahay wuxuu leeyahy inahum hum almufsiduun, iyagoo keliyunbaa baa ilaahay leeyahay ahlu fasaadka, kuwa wax fasaadiya waa iyaga, laakiin waxba waanay garanayn, waxba waanay dareemayn baa ilahay leeyahy, dareenkaa lumay. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa min calaamaati nifaaq inay ka mid tahay dadka ahlu iimaanka ee ilaahay rumeeyey inaad u aragto masaakiin aan aqoon lahayn badan, wax badan garanaynin, sufahaa, maangaabiyo, garaad laawayaal. dabeetana ilahay wuxuu ku leey waidaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana annaas, haddii la yidhaahdo war dadku siday ilaahay u rumeeyeen idina ilaahay u rumeeyo kibirkan iyo waalidan ka daaya, qaaluu an nu'minu kamaa aamana asufahaa bay leeyihin. ma waxaad naga rabtaa inaanu yeelno dadkan maangaabyada iyo dadka waxmagaratadii siday yeelaan, masaasaad nala rabtaa bay leeyihin. ilaahay baa wuxuu leeyahay sufahaa walaakin laa yaclamuun, iyaga safiiha baa ilaahay yidhi, maangaabyadu waa iyaga laakiin waxbaanay garanayn baa alla leeyahy subxana wa tacaala. oo goormuu maangaab garanaya dee inuu maangaab yahay? daabuu maangaab yahay siduu u garan inuu maangaab yahay. waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya sifaadkooda inay ka mid tahay mu'miniinta meel ay joogaan ama muuqaalkoodu joogo markay yimaadaan inay muujistaan aragta inay la mid yihiin. waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanna, laakiin kooxahoodii waxoodii markay u baxaan idaa khalow ilaa shayaaiihim qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahzi'uun. markuu warka dadka la hadlayo shareeco iyo diin iyo arrimo iyo warkaasu ka warramay, khayr buu ka warramay, iimaan baanu qaadanu ka warramay. laakiin kooxahoodii markuu u taga baa ilaahay yidhi wuxuu odhanaya war waa cayaarin, maangaabyadan iyo dadkan wuxuu sheegaye ma waxaasi dhabnaga ma aha buu leeyahy, waa xiiladka siyaasigaa ka mida buu leeyahy, wax badanka ma aha. haadihi sifaat marka aan tilmaamayno yacni qur-aanku sifaat aad u tiro badan buu ka tilmaamaya. waxaa ka mid a inay yihiin dad xumaha un ku baaqa waan samaha ku baaqin. almunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacd ya'muruuna bilmunkar wayanhawna can ilmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum nasu llaha fanasiyahum. ilaahay wuxuu tilmaamaya inay yihiin dad xumaha dadka fara, fasaadka iyo radiilada iyo waxa liita iyo akhlaaq xumada iyo waxaasi waa nidaam alxuriyaat oo la faafinaya, waa wadaan
macruufkuse waa khatar meeshaa waxbaa ku jiro waxbaa ka soo socdaa la leeyahay wixii macruufa iyada cagtaa la saaraya waa la reebaya wixiise fasaadi iyagu waa mubaaxo waa la sii daynaya ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala inay sifaadkooda ka mid tahay wayaqbiduuna markay xoolo joogto waa dad hunguri badan baa ilaahay leeyahay inay waxa inta u badan qaataan bay rabaan marka ay bixin joogtana waa dad gacmo adag oo inaan waxba ka bixin bay rabaan isagu waxba intuu qaato inaan shilimo ka dhicin ayuu doonayaan markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وهذا مركا وحبحين يا صدقية وحبحين شوكتور ربين وحلصيه إذن راعستك الراعة هل كاس وحكم غليها هداد وحسيسه ومعك والرالي انت وحقادنا ايوه لكن هدي الله يدادك ما انت ولا غير ما يقولك هاي ردي بدن باجرتا مركاس ودودا يا با إلهي إلهي سبحانه وتعالى مركاس عرض بلابيا idan waa dad hunguri badan oo hantii markay meesha taalana hunguri la taagan marka aan wax jirin ama aan isaga wax loo dhiibinna ceebayn badan baa ilaahay leeyahay lamzi waa dad ceebayn badan oo dadka ku ceebaynaya wax bixin la'aan iyo kan waa dad hadday wax bixinta iyaga waxa la yidhaahdaa yaqbiduuna aydihim gacmahaba u xidhan bastil yadi ma yaqaani gacantooda ma fidsana idan waa min sifaati nifaaq هذه الصفات مركا عن تلماما يوحى عن رباه إن أنا يلان أدنى أنا ديالان ويوا علامات كمدة علامات النفاق النفاق نو قيب سما مرنا وكي قلبي قدك يا قال لي مضاها مرنا والنفاق عملية نفاق عملي وكون نبي محمد عليه الصلاة والسلام كنت الماما آية المنافق الثلاث منافق علامات كالغقر تواصدح أما 4 من كن أفر منك كسو جنب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفرتاس isugu yimaadaan waa munaafiq barax tiran anbiya ismarin ninka mid kamida laga helaana khasla min khisal nifaq ba ku jira buu nabigu yiri qayb kamida qaybihi nifaq amaliye culimadu marka ku fasiraan idan marka aan ka warwarsanahay nifaq ay leenay saxaabadii nabi maxamed ba alayhi salatu wasalaam wa radiyallahu anhum ka warwarsan macnaheedu waxa weeyaan nifaq amaliga inaynu ka dheeraano كعقدي أنا كفجانه مركان كور رمي صفات المنافقين ومتشهدين عد على مدسان واستيسان وحنو تشهد قف كستاء مؤمن أهل إيماني إنه يسكت ضيان وحكن كفيد مكتوبات كانوا إنه يسكت ضيان أنو يلان علامة دي إلى هاي كوا النار تهلك وهو سيجل يا إلى هايين إن هندي أنا لجاهلين إنه يسكت ضيان إنه كفجانه سد ردد بإله سبحانه وتعالى وحنات المامية ودول دار بدن بالليل ahdigan dambe waxa macruufa madaxda waa la dhaariyaa waa nidaam gaaleedka way muslimiintu waxba may dhaarin jirin madaxna lama dhaariyo cid kalena lama dhaariyo qofka muslimka hadii meel loo dhibo wuu haya laakiin nidaamka gaaleed baa yaqaana qofkan gacanta taagaya la dhaarinayo dhaar iyo waliya billumba waqtigan dambe la tirabadiyay calaamatu nifaaq ilaahi wuxuu ku tilmaamayo wa yahlifuna billahi innahum la minkum wama hum minkum ولي بالله waxay gunta kaga jarayaan inay idin ka mid yihiin inay danta dadka wadaan inay maslaxada ilaahina wuxuu leeyahay wama hum minkum idan kama tirsana waxaynu tilmaamaynaa Allah subhanahu wa ta'ala oo ku tilmaamaya munaafiqnimada calaamaadkii lagu yaqaanay waxa kamid ah inay yihiin duul madaahirtu ay la weynti muuqaalkan sare وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم با إلهي كنت المامية موقال كودي وكو عجب قلن وقف جعل ضدك إنه موقال في عنه ويماضه لكن قلوب تودي عقائد تودي وحي رميسين يا آدو الليتان منافقين توادد مركة صفات كاسي وقرآن كنت المامي أما خطر تودي إذا هدان لبس دحك المدود كيدا هدان بدني خطر وحا كفلا inaynu taariikhda ku haynaa nabi maxamed siday u galeen calayhi salaatu wasalaam inay isku dayeen ciidankii dhammaayay uu watay thuluth ka mida inay la baxaan oo ay nabi maxamed kala hadhaan waxaa kuugu filan siday isugu dayeen inay saxaabada nabi maxamed madaxa isu gelayaan iyo dadka muslimiinta ah oo maalan
xadiidkii ka warramayay qisati lifk xaaditadii ama dhacdadii ifkigu nimankani siday markay ka soo hideen muslimiintii oo isku direen oo wax walba yani ma ghaswatu bani mustaliq markii la soo noqday waxa dhacay laba nin oo dhalinyaro oo saxaaba ah fara ka cayaaray mid baa mid dabada dharbaaxa ama haraati kaga dhuftay kii kala cadhooday dabeetana waa kuwii qayshaday yaal ansaar iyo yaal muhaajiriin ku qayshaday waa kii mowqifka ka faa'iidaystay ibn ubay